السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب قيمة بدن كحرين channel كينا يوتيوب سهلتي ومركلية كورس عصب كورسنا عصب waxaan ku qaadanaynaa MS Word ayaan ku qaadanaynaa casharkeena koowaad maanta waxaan ku qaadanaynaa hababka loo soo furo MS Word-ka ayaan ku qaadanaynaa waxa loo soo furi karaa ilaa iyo 3 qaabood ayaan u soo furaynaa MS Word-ka tusaale marka ugu horeysa waxaan ku dhufanaynaa start button halkan ayaan ku dhufanaynaa halkan markii aan ku dhufano MS Word halkan inoogu raadi waa kan MS Word 2010 halka inoogu dhufo waa qaabka koowaad ee loo soo furo MS Word-ka okay aan ka laabano qaab labaad oo loo soo furo ma jira halkan search button-ka halkan tag waxaan ku qoraynaa Word oo kaliya ku qoraynaa Word markaan ku qorno waxa inoo soo baxay Microsoft Word 2010 ku dhufo waa qaabka labaad ee loo soo furo MS Word-ka waa qaabka labaad ee loo soo furo MS Word-ka qaab saddexaad oo loo soo furo ma jira qaab saddexaad waa maxay right click ayaad leedahay kadibna new halkan aad raacaysaa kadibna waa kan Microsoft Word document halkan ayaad ku dhufanaysaa kadibna documentigaaga magac ku qor tusaale anagu sahal aan dhahno waa kan kadibna documentiga aan furno gudaha aan galno waa kan documentiga waxaan ku jirnaa gudihiisa ayaan ku jirnaa okay waxaan soo gelinaynaa marka saddexdaas qaabood waa loo soo furaa documentiga waxaan soo gelinaynaa qoraal sample ah ayaan soo gelinaynaa waxaan leenahay equal horena aan ku tuso keyboard aan soo furto on screen keyboard and ayaan qoray kadibna open bracket-kuna waxa loo furaa shift plus 9 kadibna ku xir shift plus 0 ku xir kartaa marka labadan bracket dhexdooda waxaad gelin kartaa inta paragraph oo aad u baahan tahay warqadan inay ku noqoto tusaale 8 paragraph oo kala gelinaya aadayna u badan tahay kadibna waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay aan fiiri paragraphyada 8 paragraph wujida okay warqada marka aad soo furato qoraalkaaga ama waxaad doonto marka aad dhamaysato qorato ayadana qaabkee ama sidee ayaan u save gareynaynaa waxaan u save gareyn karnaa inaan dhahno file inaan halkan tagno kadibna save halkan aan ku dhufano kadibna save halkaas aan ku dhufano waa wadada koowaad ee aan ku save gareyn karnaa wadada labaad waa maxay waxaan isticmaalaynaa shortcut ayaan isticmaalaynaa oo ah control s keyboardka aan soo kiciyo aan kugu tuso keyboardkina soo kici waxaan isla qabanaynaa control plus s control iyo s ayaan isla qabanaynaa waa wadada labaad ama qaabka labaad ee loo save gareyn karo control s wadada saddexaad loo save gareyn karo waa maxay halkan inaan taabano meesha ay noogu sawiran tahay calaamada save-ka marka inaan save aan iraahdo saddexdaas qaabood waa loo save gareyn karaa okay warqada waxaan doonayaa inaan ka baxo iyadana imise qaabood ayaan uga bixi karaa iyadana sidoo kale 3 qaabood ayaad ugu bixi kartaa maxay kala yihiin inaad tiraahdo halkan meeshaan kaleystaa tan inaad tiraahdo aad iska kaleys gareyso ma soo fur wadada labaad oo lagu kaleys gareyn karo waa maxay file halkan ku dhufo kadibna hoos u dago waxaad tiraahdaa exit office-yada qaarkoodna waxay leeyihiin kaleys halka ku dhufo exit iyadana waa kan banaankan ka jooga soo fur markale qaabka saddexaad ee looga bixi karaa waa maxay shortcut-ka alt f4 qaabkana waa looga bixi karaa casharkeena koowaad ee ku saabsanaa hababka loo soo furo Word-ka halkaas ayuu inooga egyahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar mahadsanid